waa qiso jecel oo xanuun badan oo ku saabsan aabbahan iyo wiilkiisa. Qisadani waa qiso aad u xanuun badan oo aad arki doontid. La soco bilowga. Aabbahan iyo wiilka faqiiriin waaye, meeshana wuxuu ku gataa hilib. Wiilkan yar asaga ayaa dhalay. Wuxuu arkay wiilkii yaraa gabadh soo socota iyo walaalkeed, wuxuuna ku yidhi aabbow, gabadhii ayaa soo socota. Balse gabadhani waxay ahaan jirtay mid jecel ninkan hiliblaha gado. Gabadhii markay aragtay ninkii hiliblaha ahaa way naxday, asagana sidoo kale waa naxay. Wuxuu sameeyay ayuu ka siiyey. Ayadna sidoo kaleeto way soo fiirinaysaa oo ay la yaaban tahay. Wejigii ayaa bedelmay, waayo muddo badan ayay jecel la waday. Maysan ogeyn inuu hilibla yahay. Aabihii ninku wuxuu ku yidhi hilib ii jar. Hilib ayuu jarayaa, balse gabadhii si saa'id ayay u fiirinaysaa maadaama uu khiyaanay, uu been u sheegay, uuna ku yidhi oo muu sheegin inuu hilibla yahay. Hilibka ayuu jarayaa. Weli gabadhii way kor taagan tahay, balse gabadhii qalbigeedii waa tegay. Walaalkeed ayaa ku arkay, wuxuu maxaa kugu dhacay? Waxba ayay tiri, waxba kuma dhicin, waa faraxsanahay, dhib ma lahan ayay buu yidhi. Hilibka ii jar ayuu yidhi, ii dhaqso. Gabadhii ilaa hadda waxay samayso way ka silacsan tahay. Waa diyaar, qaada ayuu yidhi hilibkaadii. Lacagtii ayuu u soo bixinayaa. Lacagta ayuu u soo bixinayaa. Hoo ayuu yidhi, sida ay u qotay namare ayuu yidhi walaashiis. Soo bax ayuu yidhi. Gabadhii ilaa hadda way aamini la'san tahay, waayo ninkani in badan ayay jecel isla soo mareen oo muu sheegin inuu hilibla yahay. Markay fiiriso ayadoo xanaaqsan ayay kasii jeesatay, balse asagii wuxuu sameeyay makasaya. Jaceylkiisii sidan ayuu ku waayay. Wiilkaygiiow, dhibkan ay haysto soo ma aragtin ayuu leeyahay. Dhibkan maalin baan ka bixi doonaa, dhib ma lahan ayuu leeyahay aabbo. Maalintii xigtay wuxuu daba ordayaa ayadii, wuxuuna baryayaa inay cafiso. Icafi ayuu leeyahay. Maxaad icafi ayuu leeyahay? Been ayaan kuu sheegay. Maxaad beenta iigu sheegtay ayay leedahay. Runta maxaa igu sheegi weyday? Adoo noocan u taalo oo hilib la gado miyaa aniga jecel ii sheegan kartaa ayay ku tiri. Haddaan ogaan lahaa maba kula socon lahayn ayay leedahay. Nolosheeda iga fogow. Ani adi ima jeclaan kartid, imana soo raaci kartid. Adiga in badan waa ay khiyaantay. Sidii ayay uga tagtay asagoo niyad jaban. Waa uu iska oonayaa murugo tii u dambeysay, waayo jaceylkiisa ayuu waayay. Ayadna way ka soo tagtay. Wuxuu sameeyay makasaayo, waayo marka hore asagaa khiyaanay. Jaceyl, farxad intaba way haysteen. Waa uu iska oonayaa, muxuu qaban karaa? Jaceylkii iyo xasuustii uu soo maray markuu soo xasuusto, waxa uu sameeya ma lahan. Wuu iska oonayaa, waayo asaga maalintii xigtay wiilkiisii yaraa ayaa wuxuu arkayaa aabbihiis oo aad u murugaysan oo cabitaan saa'id u cabayo. Meel ayuu ka fiirsanayaa. Aabbihiis oo aad u murugaysan, wuxuu sameeyana uu kasaynin, oo saaxiibtiisna ay ka tagtay. Murugo mooyaane wax kale ay jirin, balse horaan ay farxad. Wiilkii yaraa wuxuu xasuusanayaa farxadda asagii aabbihiis ay isla mari jireen. markuu
jacaylka haystay. balse hadda murugo waa iskugu imaatay meel uu wax ka bilaabo ma kasaya. wiilkii yaraa sidoo kale aabihiisa murugaysan markuu arkay wuxuu sameeyey mar walba wuxuu meesha u fariistay gabadhii si uu u arko wiilkan yar. gabadhii markay meesha soo baxday ayuu farxay. wuxuuna u orday aabihiis si uu ugu soo sheego. aabba ayuu leeyahay, aabo saaxiibtaa way imaatay ayuu leeyahay. way imaatay wataas way farxeen. markii uu arkay hilibkii iyo wixii gadaa uu iska hilmaamay. wuxuu yidhi sigoo ku soo laabanaya hilibkii wixii dhan buu iska dhigay. wiilkii aabihiis ayuu u yeeray. kaale ayuu yidhi aabbo. maxaa ayuu yidhi kaale ayuu yidhi kaale ayuu yidhi maxaa jira ayuu yidhi. kaale sidan maad ku bixi ayuu yidhi. sidan maad ku bixisaa. waaya aabba ayuu yidhi haddaan iska soo bedelaa dharkan. marka wiilka weli ilaa xasuusu ku jira farxadda aabihiis uu la soo mari jiray ayuu weli ku jiraa. balse aabihiisa wuxuu arkaa caawa aad u murugaysan. wuxuu sameeyana ma kasaayo. asagoo usoo baxay inuu haddana raali geliyo mar kale ayaa waxay soo martay agtiisa meel agtiisa ah. wuu soo orday. wuxuuna ku yidhi iga raali aho. wuu baryayaa iga raali aho ayuu leeyahay. mar dambe oo ma laabanayay waayo jacaylkaada ayaa saa u sameeyey. waxaan ka yaabayay inaad iga tagto haddii aan runta kuu sheego. arbaaxay ay ku dhufatay. mar dambe agteyda kuguma arki kari. way sii kala tuurta haddana maskiinka. sidii ayay oga soo tagtay. qalbi naxariis xataa ma qabto. sidii ayay uga soo tagtay. balse niyad jab jacaylkiisu waayay. niyad jab iyo jacaylkiisu uu waayo isku darsaday. wuxuu sameeyey malahan. maalintii xigta wuxuu iska imaaday meeshiisii hilibka lagu gadayay. hilibkaas oo gadgadayo wuu iska oonayaa waayo jaceylkiisa waa waayay. wuxuu sameeyey makasaay. farta ayuu iskaga dhuftay. alla aabbo ayuu yidhi. alla aabbo maxaa aabbo suko ayuu yidhi maraan kuu soo qabane. aabbo tartiib u jar hilibka mar kaleto ayuu leeyahay. wiilkeygii wuxuu leeyahay wiilkayga dhib ayaa ay haysto. khaladka yarka aan sameeyey ayaa ka shallaynayaa. hadda aan ku waayay jaceylkaygii. hilibisi ayuu leeyahay. dadkii hilibka geedan jireen. fartayna waa midida ayuu iskaga dhuftay. usugaan ku siinaya ayuu yidhi. hilibka ayuu u cabirayaa. oo qaadaya dhan way siiyeen hilibkii. sida ayuu ku qaatay. aabba wuxuu yidhi anaa hilibka jarjari kac iska naso. maya aabba anaa jarjari. anaa dadka ka gadi ee iska dhigay kac seexo oo naso. kac iska aabbo kac wuu barayaa aabihiis oo dhibaatoonaya wiilkan yar ma rabo. marka wuxuu yidhi aabba anaa ku gadgadaayay kac. balse waxaa imaaday meesha nin kaleeto kaasoo uu ka gadaya 2 nin hilib. wiilkii yaraa uu gacanta ku daahay. uu leeyahay war maxaa wiilkani waxaan yaa u dhibta shaqada maanta ma dhaqso wax nooma waxeenaye. ayaa wiil ka mid wadada iska maray u soo tagtay. wuxuuna arkay aabbaha meesha iska jiifo iyo wiilkii oo shaqada hayo. markii uu orod ku soo galay
orod ayuu kusoo galay araantay maxaa la jeeftaa maxaa waye shaqadan aad ii qabanayna ayuu leeyahay istaag ayuu yiri shaqada aad ku dhibaysa maxaa waye meeshii la rabo adiga inaad shaqayso marka wuxuu leeyahay raali oo ana aabay ku qasbay iga bax iga taga meesheeda waxba igama shaqaynaysin adigana soo kacay ayuu yiri wiilkiisii asaga wuu isla tuuray idhaaf ayuu yiri meeshina wuu ka ceersaday waayo asagoo la ceerinaya gabadhii aragtay oo ilaan talo meeshaan amuu laheenba oo kir ayuu ugu jiray gabadhana waxay u malayn jirtay inuu asaga leeyahay meeshiina waa laga soo ceeriyey hadda banaanka ayuu taagan yahay oo cidlaha jeceelkiisina wuu waayey meeshuu wax ku gadanayana wuu waayey wiilkiisa ayuu soo qaatay wuu iska soo baxay gabadhina waata mar dambe meeshaas iga imaanina iga taga ayuu yiri sida ayaa asagii wiilkiisa uga soo tagay asagoo iska socda wiilkii oo wiilkiisa wato meel uu aadan oo ka silaayay qisadii saas ayay ku dhamaatay